بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا waxaynu soo heynay alkhalaa'id alburhaaniya waxaynu soo marnay asxaabu lfuruud dadka wax ku qaato fardiga oo qur-aanku uu sheegay binasi waxaan kaloo soo marnay kuwa wax ku qaato tacsiibka ama casabanimada ayaan soo barnay waxaan caawa bilaabeynaa alxisaab sababtoo ah faraa'idku waa laba qeyb ah fahmu qismati tarika tarikada sida loo qeybinayo fahamkeeda matalanba lizawji annisf walalabinti annisf taa waa soo baranay qeybta labaadna waxa weeyaan waa cilmu lxisaab cilmuxisaabna laba qeyb ayuu noqdaa tasiilu lmas'alati iyo tasxiixuhaa labadaas qeyb wey tasiilu lmasalati iyo tasxiixuhaa haddaan dib igu laabano qismu tarika nisfi wax ku dhexlay shan qolo soo mayn khamsa azawju bintu sulbi iyo bintu libni alwaqtu shaqiiqa alwaqtu liab waa gabdhihii soj baa la socda athuluthaan yaa ku dhexlay gabdhaha qaato nisfiga min dawaati nisfi intaa weyaan ka soo bood marka rubuc yaa qaato الزawju والزawja haddii laakiin bishardi zawjku haddii la joogo ilmo weeyaan sawjadana wax ilmaa aysan la joogin wey uma yaa qaato zawjadii baa qaadato ama zawjaadkii waa la mid jabcan hadday keliya tahay haddii laakiin uu la joogo wax faraca weeyaan maxaa noo haray athuluth thuluth yaa qaato marka hooyo baa qaadato hooyo walad weysi walad weysi ilma aysan jirin walaalo macna wax waalan aysan jirin wey oo fara badan laba iyo wixii ka badan baa laga hadlaya laba iyo wixii ka badan waxaa kaloo ku qaato thuluthka awlaad ulummi hadday jamac yihiin raggooda iyo dumarkooda waa loo simaya macnaha thuluthkaas bisawiyata bay ku qaadanayaan sudus yaa ku qaata wax 7 qolo soo maxay ahaayeen marka kuwa waaweyn oo usuusha ah aan tirina marka alummu alabu aljaddu aljadda kadibna bint libni maca binti sulbi haye alaqtu lyab maca alaqti shaqiiqa iyo walad اlummi ida kana munfaridan sawaء kana dakaran am unha haada lab iyo dhadig wuxu raba ahaado hal qof intaas wey walalxisaabi xisaab baabu lxisaabi wa usuulu lmasaa'ili iyo walcawl walxisaabi intaw muxasilan faاstakrij اlusuula awala fainaha qismaani ya khaliilu ثلاثة منها التي تعول فالست للسدس مخرجا ترى وضعفها للربع مع ثلث جرى وسدس وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل وللحساب وإن ترم هدي رادينيسو للحساب حساب محصلا أما وإن ترم هدي دلبيسو محصلا حال حصلينيسو للحساب حساب فاستخرج صار السبع الأصول usuusha toddobadaa soo saar awala marka hore fa inahaa ayada usuushaasi qismaani waa laba qeyb yaa khaliilu saaxiibow ثalaaثatu saddex oo minhaa usuusha ka mida
allatii taasoo ka sifee allatii taasoo tacuulu cawlayso fasidtu weeyaan lisudsi xaalo u sugnaado taraa waad arkaysaa makhrajan baad ku ogaani taraahu makhrajan wadicfuhaa wadicfu siti lix oo la laabay waa meeqo waa 12 jaraa waa dureersanayaa lirubci oo maca thuluthin lala qabo oo amase sudusin bimacnaa lirubci maca sudusin wadicfu dicfihaa sitadii haddii la laabo haddaan lagu sii daro waa 24 weeye ataa waa uu yimaadaa makhraja sudusin xaalo u yahay ama ataa waa yimaadaa huwa asagu makhraj sudusin macnaha ciraabtu saarteen maca thumunin asagoo la jira yaa fataa fahadihi alcawl fahadihi midani hee alcawlu cawl aa yadkhulu gala calayha dusheeda in kasrad hadday fara badato weeye furuuduhaa furuudu lmas'alati yaa rajulu dabcan waxaan soo barannay usuusha waxaan soo barannay ilaa meeqaan soo barannay 5 baan soo barannay 5 asal sababtoo ah thulutheenka iyo thuluthku muxuu leeyahay hal asal buu leeyahay mogta waa 3 baa laga bixinaya soomayn marka 5 asal baan soo baran nisfu oo laga bixiya laba macnaha nisfu muxuu ka baxaa min 2 nisf iyo waxaan soo barannay athuluth iyo thuluthin maxaa laga bixiyaa 3 makhrajka macnaha halkaas baa laga bixiyaa marka waxaan dhahaynaa makhraj almas'alati 3 aan dhahaynaa marka sooma nacam marka makhraj waxaa la mida markii aan dhahayna makhraj almakhraj waxaa la mida subxaan allah makhraj waxaa la mida maqaam waxaa la mida imaam waxaa la mida makhrajna waa iyo makhraj caadi marka imaamu lmas'alati makhraj lmas'alati maqaam masala isku mid waay macnaha taas baan ka wadnaa haddaba marka 5 baan soo barannay nisfi oo ka baxo 2 iyo thuluth iyo thuluthin oo 3 ka baxo iyo sudus oo ka baxo min 6 6 maxaan kala soo barannay thumun oo ka baxo min 8 5 asal baan soo barannay soo ma waxaa lagu darayaa marka 12 12 ku dar maqrajkaa lagu darayaa marka 12 macnaa wax weyn ma ahan waxaa lasu keenayaa كل مسألة شيخ الناصر شيخ ما يقول فالست للسدس مخرجا وضعفوها للربع مع ثلث كل مسألة فيها ربع وثلث من 12 marka ربع tu ka baxaa 4 soo ma ربع baa soo iloonas 4 ka baxa ربع iyo maxaan ku daraynaa ثلث muxuu ka baxaa soo ma 3 marka fiiri ربع iyo ثلث maxaa ka dhaxaya marka maxaa ka dhexeeyo tabaayun marka isku dhufaya isku dhufa marka 4 ku dhufa 3 meeqa waay saasay ku imaado macnaha marka kuwii le haddana laisku soo celiyo bisle kuwii qur-aanka uu sheegay le marka wax cusub marka maaha naqr cusub marka maaha mugta ya marka waxaan ka soo bixinay halkaan ka soo saarna marka 12 ma fahamti 12 ka soo baxaya marka haddana sito 12 labalab meeqa noqonaysaa 24 marka 24 sana makhraj kale waa ku darayna marka 24 makhraj kale weeyaan nacam makhraj kale waay 20 hadda fiiri marka sheekhu muxuu ku yidhi waxaa ku yidhi wadifu dicfiha sito markii la laabo meeqa noqonaysa 12 si lab meeqa noqonaysa 24 waa makhraja sudusin maca thumun kullu mas'alatin فيها سدس iyo ثمن مخرجkeedu waa maxay marka ma huwa macna marka macnuhu waa marka macnuhu waxa weeyaan maxaa ka dhaxayo ثمن iyo sudus maxaa ka dhaxayo 8 iyo 6 maxaa ka dhaxayo tawaafuq ay maxaa marka inta iska waafaqaya marka بالنسبة 100 بالنسبة نعم توافق مثلا توافق بالنسبي marka dabcan
كله مركز سيدي كله مركز كله أفر سدح ما يقدر نقول ساسوان نعم ساسك يوم هذا توافق بالنسبي أكيد توافق بالنسبي معناه مركا كانوا لما يستر أو سيدي كله فنا أما هذا بالتبقدي كان سيد حديث معناه كان أفرتيس كله فوق ستو إسلام إيش هو معناه إلا مت كمش سكوا فقا هاف كيس بان كله فنا كلا أو كامل وعنا صوب عيسو لواتني أفر ساسي معناه توافق بالنسبة مركا ساسي كوي ما هذا مركا هذا مركا لبدان أمبيا مركا عن كسب بحني لواتني أفرتا مركا فرض عصبه وقرانك أو شيء مركا قرانك دي موصل نسأله معدن لكن والله استنباذي معناه والله استنباذي مركا مسألة كست مركا عني سنو وعن كل سنة تضوان شيء تضوان أصله معنا بس يا شنت قرانك أو شيء قرانك دي لحبه شيء لكن لبا اسكو أصله معناه لبا اسكو أصله شنتاس إلى لبدان عن كل سنة لبا طبعا إلى لباتن أفرتن على القدرية مركا مسألة كست مركا ما معنا ما كبحيسو حول هذه السبعة تضوان ما كبحيس أصل هو أصول المسألة مركا أصول المسائل وي طبعا هو مهم من أول انت marka uga baxa marka cool baa jiro wax la yiraahdo coolku marka macnihiisu waxa weeyaan waa ziyaadad waxa la kordhinayaa al-nasiib ziyaadad al-nasibawi nasiibkii baa marka ay badinayna مثلا waxa weeyaan wixii yaala meesha iyo dadkii fara badan marka si wixii marka loo gaarsiiyo ayaan badinaynaa marka meesha marka gaarto ayaan ku dhisaynaa meesha gaarta masalada ayaan ku dhisaynaa cool baa la yidhaha waxaa ka soo horjeedo oo asagana imaanayo mas'ala naaqiso waxay noogu imaan doontaa radiga marka macnaheedu waa maxay xoolihii dadkii macnaha meesha joogay ayaa yar xoolaha ayaa ka badan wey marka nuqsaan baa ku jirto dadkii macnaha ayaa yar marka radiga iyo midaan wax isku yihiin cagsi bay isku yihiin arki doonaa insha allahu tacaala waxaa jiro caadila haddii dee wixii meesha yaala iyo dadka isla ekaadaan macnahena waa masala caadila waa isla ekaadeen waxyaalo badanna waa soo marnay meelo badanna waa ku soo marnay marka cawlka misaalo fara badan baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala caawa la qalayaa biidn illah fiiri marka فهذه العول يدخل عليها فيه إن كثرت فروضها يا رجل مجدده هذه فروضي فربضته علبة ميشا إيمانا يأويان شرحا كوشر ومعنى العول أنه إذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض تعال المسألة أي ترفع سهامها على كل واحد بقدر فرضه لأن كل واحد يأخذ فرضه بتمام إذا انفرد فإذا ضاق المال هذه حوله يرادان وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق marka haddii cool aan la gelin haddii cool la geliyo xoolihi marka waa yaranayaan soo marka xoolihi waa yaranayaan ilaan waa kordhina mogtahay tiradii baa kordhin xoolihi waa sidii laakiin tiradii baa kordhina mogtahay tiradii baa kordhin nacam haddaba marka dadka ahlu fardiga ah hadday yihiin casabo oo keli ah casabo bis waaye macnaha matalan ba waxaa jooga 5 wiil xoolaha maxaan ku dhisaynaa calaa ru'uusi baan ku dhisaynaa marka fuuda 5 aan ku dhisaynaa bis waa kala qaadanaya hadday yihiin gabdho iyo wiilal waa casabo mogta lidakari mithlu ayaan ku dhisaynaa idana waa isla meeshii waa u kala badinaynaa mahane haddii laakiin ay ku jiraan ahlu farad ahlu faradkii hadduu yahay hal iyo inuu yahay wax ka badan inuu yahay hal iyo wax ka badan hadduu hal yahay masale waxaan ku dhisaynaa halkaas macnaha dee hadda matalan zawj iyo waxaa jooga iyo 5 baniin nacam masale maxaan ku dhisaynaa min ama waxaa zawj iyo waxaa jooga hal wiil baa jooga bis maxaan ku dhisaynaa min ربع من 4 واي سوج محو قادنايا marka hal inta kale qaadanaya wiilka qaadanayo hadaba marka maxaan ku dhisnay maqrajkii meeshii aan ku dhisnay marka hadii mar ay ka bataan ka waran marka
farad uu ka badan yahay dhowr nin baa joogto dhowr qof oo ahlu farada iyo casaba baa joogto waa masale sheekh hadda uu noo sheegaya marka oo gadaal naguma doonto insha allahu tacaala waxaa loo fiiri doonaa annisab alarbaca maxaa ku jira la leeyahay cadadkan meesha yaallo maxaa nisbooyinka ka dhexaysa soo maxay afar nisbo weeyaan tabaayun tadaakhul tamaathul iyo tawaafuq sheekha dib noogu keeni doona waa sharxi doonaa insha allahu tacaala hadduu allah yiraa أقسامه أربعة تماثل توافق تباين تداخل أريدنا إن شاء الله فتنتهي الستة نعم فتنتهي الستة لحظة لما يسترنتا نعم فتنتهي الستة فيه ويان في العول تترا ويان سحرير شفعا ويان ترى ربا أو سمن إلى 10 لا يجار طبعا iyo witran weeyaan watr wadicfuha wadicfu sittati waa laba iyo toban nacam witran kelinimo bimacnaa waxaa laga wadaa wadicfuhaana dicfu sittati yantahi waa dhammaanaya witran keli keli ilaa 17 laga gaaro wadicfu dicfiha waa 24 weeye intashara waa faafaya cawlan bithumnihi thumunkii oo ثلاثة وين وما حي عولك يا شرعية معنا عولك على لقول شيء يا عول وحو قلا فروض قار عول وقلا قارن عول ما قالوا ما يقال شكلنا سومين 7 أصوشة 7 سومين 7 هذا سي 6 كم إذا أيوة قلا عولك أفرنا ما قالوا مركب واحد كوبون واحد وين ما الستة 12 إيوه لواتني أفر أيوة قلا عولك أنت كان ما قالوا علويا أفرت كلا صورت أفرت كلا صورت واضحي وسدح سدح وين اللي هو حنكسر هنا سدح يا لابو يا أفر يا سيديد واي مثل فانا سما أنت سوي كواس عول مقلو وأربع لا عول فيها وقام مركا 6 وحي وعوشة إلى 10 بالجارسيا مركا قدام بيسو فعلى مسألة ومن 10 عول بيقار 10 قال لي إلى 10 لكن قاب كي واي هل مرة مئات شرط ما أمر بعد مثلا بقى شفعا بين نقطة شفعا بقوم حي 6 محاواه طبعا قدر ما كان قدر ما يقول نقطة سديد قدر لبو مركب مرتين واي صما وتنا واسدو كلا سنة ومرتين تضبو إيوه سيال وي معنا قاب كاس علمك فالمسألة عارض إلى 9 باللي مركب يا مركب مثال فرق بدن بقول شرحنا وكون مثال شرح كثير سعوقة ومثالي كسعود وضعفوها مركب وامحي لبيا طبعا أسجنا وحو علا وترا بس هل مرة وترة 17 وترة بس ما وحن كوضا معناها ووتر مركب اللي لبيا طبعا حوي واشني طبعا إيوه 17 والله مر معناها وترا عن كوضا مرتين ويا نعم 15 إيوه 17 وتر أصير معنا لا شفع فيه وضعفوا ضعفها بثمنه انتشر لباطني أفر أصير وحوك عورة أو كليه 6 اللي قدر بس لباطني أفر نقول مركا لباطني جدو انت سوي وضعفوا ضعفها أنا ولباطني أفر وضعفوا 6 معنا انتشر وفافيا أو الآن قرب وبحيا بثمنه بوكو عوليا ينتشر بثمنه مركا دي لباطني أفر محا ثمنه 3 واي وقيوي معنا لباطني أفر وقيوي ثمن وقيوي 8 وقيوي معنا 6 انت معنا marka 24 bis aan ku dari karnaa intaas buu gaariya waxaano dhan waxa la isticmaalo aan qayb arki doono insha Allah taala naam wa arba'un la hawla fihi yakfu thumnun wa rub'un wakan wa arba'un afar la hawla fiha la hawla yakfu fiha wiyan awl marra dhexdeeda way afartaas thumnun iyo wa rub'un thumma thulthun نصف وي معناه نصف ونصف وي فمخرج النصف مركب انت هذا شيء نواه مركب ما شيخ وحنا شيء مخرج ان شيء نواه فمخرج النصف نصف مخرج كيسا اما مقام النصف اما امام النصف غدا ايسار من ثاني نصف الله لقى بحشا صح لكن قفك بحو قادنيا هل بو قادنيا هل يو قادنيا والثلثون من 3 أيوك هذي
marka ثلث waxaa la mida ثلثين baa la mida وقد بدا وأو ظاهري ظهر ربع وسبط فاعلكي waa ربع weyn وقد بدا ربع وأو ظاهري من 4 ربع قال لك بحشا مقرش كسامة هو 4 weyn ومن 8 وثمننا وبدا ثمن من 8 ثمننا 6 buu ka baxaa فذي مدني هي الأصول الثانية التي لا عول فيها وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كملا وحظ كل وارث كasta dheeftiisa إن حصل hadii xasilo من أصلها من أصل مسألة أو ka xasilo فالقصد qasadki ulajeedadii minhu min الأصل ayuu kamula معنaa xisaab ma u baahno mogtahay inaan tasxiixina mogtahay wiil iyo زوج baa jooga فالمسألة wiil iyo waxa joogo iyo زوج فالمسألة من 2 waa نصف mogtahay xisaab ma aadayna marka hal iyo hal aan kuseedayna waa kala qaybaynaa bis macnaha markaasi qasadkii waa helnay inaan daalno xisaab marka meeshii ma imaanaysaba waa meeshii aleeda ma tarxabiyada وإن تكن من أصلها تصح فترك تضيل الحساب ربح يا mararka qaar inaa xisaab aado iyo inaad masaladii meel fudud aad ka samaysato waxaan ku soo marnay cumariyateenkii baa la mida aan soo marayna naam baabu tasxiix ilmasaa'ili waa kana marka haddii marka wixii aan xisaab u baahnayn in la tasxiixiyo sidaan u dhisayna u qaybinayna sama xoolii aan kala qaybinayna bis 6 wiil ayaa joogta iyo gabdho ayaa joogo ama 6 wiil baa jooga calaa cadadin ru'uusi ma ugu qaybinayna tasxiixi ma jirto laakiin markii xisaab loo baahan waa kana marka ta'siil masaa'ili waa soo barna soma masaladii waan asalaynay maqraj kasta waxa uu ka baxo waa sheegna soma hadda waxaan baranaynaa inaan mas'ala markaan tasxiixin hadduu uu yimaado mac kasri idaa jaa alkasru ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع في الأصل أو في عوله والكل فيه ذاك لدى التباين اضرب واكتفي فهي إذا تصح ثم إن الكسر كسره يقع وضع على صنف كحب كدعا صنف نعم فوفقه مركا فاضرب كل فوي كضرب وفقه وفق الصنف waxaa ku dhufata ayaa ku dhufo weyaan waxaa ku dhufanaysaa waxa gee في الأصل إن شاء الله في الأصل فاضرب كل فوي وفقه وفق الصنف إن توافق وقع ضوضع كل فتا في الأصل كل في أصل المسألة أو في عول في عول المسألة والكل كل في ذاك والكل واضرب الكل ضمان وحا كل فتا كل الصنف وي كل الصنف وحا كل فتا في ذاك الأصل كله لدى التباين كلا فقاشاء اكتهدوي اضرب وي واكتفي كنا كافتر انت صوي فهي ايضا مسألة دي إذا تصح عن حساب مثال محي حالو يري كسرق إلى أفر أيو قارابس في الفرائض مطلقا بقى هل قول إنه كجبو مسألة دي إنه معناها إنه أقرب سموس وحي صوهري wixii meeshii yaalay iyo dadkii ayaa fara badan uma qaybsamayso hal qolo ayay noqotaa ama 2 qolo ayay ka jabtaa fi masala waaxida waay ama waxay ka jabtaa 3 qolo ama 4 wala tasiid ka badanayso inta faana soo haddaba marka sheekadu wuxuu noo sheegay beed labadan beedoo hore haddii ka jabto ala sinfin waahid ama fariiq dheh ama sinfi dheh arabta dheh haddii ka jabto 2 qolo ama 3 qolo ama 4 qolo waxaan oga imaan doontaa والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا أقسامه 4 تماثل أريدنا إن شاء الله تعالى haddaba haddii ka jabto hal sinfi waxaan samaynaynaa waxaan isku fiirinaynaa sinfigii iyo sihaamtii baan fiirinaynaa sihaamtii u ku soo aaday iyo kooxda baan fiirinaynaa maxaa ka dhaxeeyo ayaan ka fiirinaynaa 2 shay bisaan ka fiirinaynaa التباين والتوافق ogow tabaayun tadaakul iyo kuwaas hadda aadi mayno tadaakul iyo kuwaas aadi mayno waxaan ka fiilaynaa oo keli ah
waxaan ka fiirinaynaa tawaafuq iyo waxaan ka fiirinaynaa iyo tabaayun ayaan ka fiirinaynaa. marka maxaan samaynaynaa? waxaan samaynaynaa haddii meeshay iska waafaqayaan baan waxaan ku dhufanaynaa fi asli اlmasalati aw fi cawliha, ama waxaan samaynaynaa sinfigii oo dhan ayaa waxaan ku dhufanaynaa fi اlasli aw fi cawlihi. hadda miaal waxaa tiri firi umun wa arbacatu acmaamin. umun marka waxaa dhintay wiil baa dhintay, wuxuu ka dhintay can ummihi iyo afar adeerkiisa ka dhintay, afar adeeradiisa. marka masle marka intaan ka dhisaynaa min aish hooyaa joogto macnaha min ثلاثة. nacam min ثلاثة. hooyo marka maxay qaadanaysaa hal sahami. maxaa soo haray? labaa soo hartay. afar nin laba muu qaybsamaysaa? laa yumkin dalik. maxaa marka samaynayna? sheekh muxuu ku yidhi in inkasara calىa sinfin yaqacu fawafqahu idrib waxaa ku dhufataa fi اlasli aw fi cawlihi. labadaa marka aynu fiirin maxaa ka dhexeeya marka afarta oday afartan iyo maxaa ka dhexeeya labo maxaa ka dhexeeya matabaayana mustafa ka dhexeyso maxay isku waafaqayaan laba iyo afar maxaa ka dhexeeya ifahma waxaan fiirinaa baan ku yidhi atabaayun wa tawaafuq aan fiirinaynaa baabka meeshaan markaa marayno tawaafuq baa ka dhexeeya. tawaafuq binisfi waay. laba macnaha way kala barantaa soo ma kala bar, afarna way kala barantaa soo ma haye. marka waxaan marka u celinaynaa marka ru'uustii waxaan u celinaynaa labo. ru'uustii labaan ka soo qaadaynaa marka ila maadaama waxay waafaqday kala bar waafaqaysaa mogtahay. laba waxaan ku dhufanaynaa fi asli mas'alati. masaladii maxay ahayd asalkeedii ثلاثة. ما يغير مركب 6 وغير مركب ما يس ما هو يوحي قادني ثلثي قادم سدس ما مقته هالي جاي قدم. نعم 6 واي مركب محاو ثلث 6 لبو افر صوت هلا بيقادني مركب سمجد. marka waxa weeye in tawaafuqun waqaca fi اlasli aw fi cawlihi. marka fi cawli waa ku mithaaliyey si akriso iyadoo cowl noqotay mujida ka soco marka faya idan tasixu marka walkasru cala akthara. marka xisaabta markii la joogo tawaafuq markii labada shay labada xisaab oo meesha yaallo oo la isku fiirinayo hadday iswaafaqaan waxay iska waafaqayaan nisfi rubuc thuluth ya waxaan qaadanaynaa marka mid ka mida nisfi aan qaadanayna ka kala dhamaystiran baan ku dhufanaynaa. macnaha midka uu wax waafaqay matalan ba nisfigii ama rubucii ayaan qaadanaynaa kan kala dhamaystiran baan ku dhufanaynaa sida marka waa helaynaa. haddii tadaakhul ay tahana maxaan qaadanaynaa akbarkaan qaadanaynaa. sheekhan hadduu noo keenaya insha allahu tacaala. hadday tahay mutamaahiliin waa rubuc iyo rubuc maxaan qaadanaynaa halaan ku kaftoomaynaa. hadday tahay tabaayun maxaan samaynaynaa waa isku dhufanaynaa xaasilka ayaan qaadanaynaa. inta waa faana soo ma fiiri marka markii la isku fiirinayo markasta sihaamta iyo ru'uusta la isku fiirinayo waxaa la fiiriyaa qaacido waay. markii la isku fiiriyo macnaha hadda maxaan isku fiirinaa soo maahin laba noo hartay waxaan isku fiirinaa soo maahin iyo ru'uus. waxaan ka fiirinaa oo kaliya atabaayun watawaafuq. laakiin markii aan isku fiiri doono wixii ka soo haray intaa afarta qayb baa loo fiiriyaa. haddaan gelaynaa walkasru jajabkii kasrigii idaa kaana hadduu yahay waaqicun mid dhacaya ama idaa kaana ay idaa xasala hadduu ku xasilo wey calaa aktara wax ka badan min sinfin hadduu ku xasilo ku dhaco fadaakani aqsaamuhu qeybihi arbacatun wa afar tamaathulun weeye tawaafuqun wa tawaafuqun weeye tabaayunun wa tabaayunun weeye
تداخل وتداخل وي فواحدا أي فاحفظ حفظي أما فخذ قاضو واحدا مد أو من المماثلين كوي إسلامتك أهاي كأهاضي احفظ حفظي وي احفظي وي وزائد المناسبين أي وخذ قاضو زائد المناسبين لبدي مناسبين كأهاي ومتداخلين كي بالغ وضاهي كان ديراتك كان بدن قاضي معنا كان بدن قاضي وي لبا iyo sita ayaa meesha taala sita iyo labo yaa marka qaadanayna ila sida wax ku dhamaanaysa labadu wax ku dhamaanaysa sida ku dhamaanaysa marka lixdan qaadanayna waxaasila marka qaado waqud qaado ama waxaasilan ka soo xasilay min darbi ma tawaafaqa kii waafaqay fi lwafqi waafaqay oo amase min darbi ma faaraqa waxaad ku dhufataa fi kulli thaanin ku dhufaway fahuwa kaasi جزء السهم وين فاضربه كله فكذب وي في الأسى كله فوي أي هذا الفهم فحاصل الضرب ضربي كان فحاصل ضربي صو حصلي هو تصحيح وين فاقسموا قيمة مركزي فالقسم إن صحيح ليش واحد يقول شيء يا هذو كسر يكون ماذا على أكثر من اثنين يعني معناه على صنف هل صنف وحي كبدا هذو كوي ماذا مثلا بوحو كجبي لما قالوا wuxuu ka jabay 3 qolo wuxuu ka jabay 4 qolo wala yaziidu ayanta lagu baranaya hadaba marka qaacidada taalo waxa ogaatay markaas qabo waxaan ku yiri ruusta iyo sihaamta markii la isku fiirinayo laba shay baan ka fiirinaa kaliya at-tawaafuq iyo wat-tabayun waxa wixii ka soo harana waa maxfuudad arki doona insha Allah kuwaas waxaan ka fiirinaa 4 qayb baan ka fiirinaa labadan iyo lagu daray at-tadaakhulu والتماثل marka مثال إذا فهمت طبعا أيضا كجبتي على فريقين لبا كوح هل مثال في مركب كذا إلى هل مثال يكون ما نسى مقته شرح في المركب وستة إخوة لأم وثنتا 10 أختا لأب عارف إلى تطبيقية حقا ما حقا اللي بدون واي أيضا مناسقاتك ماشي صفحة صار وضع موجودة صفحات صدوات صار وضع موجودة موجودة وستة إخوة لأم وثنتا 10 أختا لأب أيام ماشي كل مي أي ماشي مركب waxaa ku jiro 3 farad baa ku jira meesha hooyo haddii dee walaalo ay joogaan hooyo maxay qaadanaysaa sudus waxaa noogu jiro 6 إخوة لأم أيضا maxay qaataan وجمع ثلث فرض كلواي 12 أختا لأب أختين قاعدين فربدين maxay qaataan ثلثين نعم حديد هل لبا iyo wixii ka badan maxay qaataan ثلثين bay qaataan moogta هذا أخت اللي dib ugu marka نعم haddaba marka intaan oo fardi baa noogu jira marka بسبب ما كده وحن قادنا هنا لبضان فرض معنا وهل موقت هل فرض واي وسدح واي سوا نعم ان سدح هي 6 بحا كده حيو تداخل حن قادنا هنا مركب 6 قادنا هنا سدح لح كجر وضمان زيرو واي مركب 6 نص قاد مركب فالمسألة من 6 لكن تعول الى ايش؟ الى 7 اي عوليسا صوبته marka orka waa idin sheegay hadda fiiri igeeso sito hooyo macna uma maxay ku leedahay hal bay leedahay dabcan hal bay leedahay saacida isu shaqeyn hal bay leedahay haye sita li iqwati li ummi xiliyin thuluth sita maxaa thulutha labo saddex baxda soma haye 12 ukhtan xiliyin thuluthayn maxaa sita thuluthayn afar soma marka maxay noqotay marka 7 hal ku dar labo ku dar 4 toddoba soma marka waa cusub ogow marka waxaan ka dhisaynaa meesha ay gaartay marka mas dhibaysna waa tirsanaysaa ko markaas wax meesha ay gaarto ayaa colka marka waxaan leeyahay alaana saxad ana kan saxiix marka masalada waa 7 naam laakiin dhibka neesto waxa weeyaan hooyo ayada waxay halkeeda u nadiif ilaa wax kale oo dhib haya ma jiraan way iska baxday laakiin dhibka neesto waxa weeyaan lix wiil waaye oo liumin awlaad umin oo lixa waaye maxaa ku soo aaday labo ma qabsanaysaa laa yumkin
kasraa gelaa macnaha haye 12 ukhtan liabin maxaa ku soo aaday afar ma qabsamaysaa 12 qof waaye marka hadda wuxuu kasriga wuxuu ku dhacay laba koox soo ma laba koox buu ku dhacay marka calaa sinfayni waaye marka maxaan samaynaynaa marka u horeyso labada gobod aan qaadana waxa weeyaan sinfi kasta iyo wixii ka jabay saamigiisiyaan aan is aadaynayna marka hore maxaa ka dhexeeya dhaynaa maxaan u fiirinaynaa sinfi kasta iyo saamtiisa maxaan u fiirinaynaa marka maxaan u fiirinaynaa tabaayun iyo tawaafuq bisa u fiirinaa weli qaacidada waa iga qaldaysaa weli waxaan yidhi markaan isku fiireyno cadad ru'uus iyo sahmiga ka jabay oo aan u qaybsamayn markaan isku fiirino laba shay umaan ka fiirinayna atawaafuqu watabaayunu waa u tagayna kolkaa insha allah haddaan kasii tagno haddaba marka hadda aynu bilowno aynu fiirino marka ikhwadii oo ahay ikhwatu liummin laba sahmi ayay lahaayeen soo ma marka meeqay ahaayeen lix bay ahaayeen lix iyo laba marka maxaa ka dhexeeya marka tawaafuq binisfi lix laba tanqasimaan ilaa qismayn laba ay kala baxaysaa saddex iyo saddex labana hal iyo hal buu noqonaya soo ma tawaafuq binisfi waaye ru'uusta marka oo ah lix waxaan u celinaynaa nisfi baan u celinaynaa marka waxaan ka soo qaadanaynaa saddex qof aan ka soo qaadanaynaa marka waxaa lagu magacaabaa almaxfuud ama almuthbat marka meel baan dhiganayna marka macnaa waa xifdinayna meel dhiganayna halkaas miiska noo sar waxaan ka soo qaadanay walaalihii lix bay ahaayeen nisfi waxaan u celinay nisfi baan u celinay maadaama de wixii sahmigiisii uu kala barayo saddexaan soo qaadana oo dhig marka haddana waxaana soo aadisaa akhawaadkii ahay liabin 12 12 iyo 4 maxaa ka dhexeeyo tadakhul ani waa kuu sheegay waa inaan fiirinaa aan ku yidhi sihaamta iyo ru'uusta waxaan fiirinaynaa labaan ka fiirinaynaa tawaafuq afar waxaa ka baxo labaa ka baxa soo ma 12 maxaa ka baxo nisf waa tawaafuq asnaad binisf waay 12 lix oo kala jaraysaa asna waxaan celinaynaa lix u celi marka 12 lix celi macnaha nisfi aan u celinaynaa marka maxaa marka waxaan ka dhigaynaa waxaa ka dhexeeyo waxaa kaloo ka dhexeeyo taas waa haddaan tas samayno maarate way dheeraanaysaa marka waxaa ka dhow marka inaan aadno rubuc inaan aadno marka ya afar waxaa ka baxo oo ka dhow rubucaa ka baxo afar markaan aan saddex meelood maxay noo noqonaysaa rubuc wey rubucaa ka baxo 12 maxaa ka baxo awal lama qaanaysanay waxaa la siiyey afar soomayn ayagana waa 12 maxaa rubuc marka saddexa rubuca mogtahay taasaa dhow macnaha haddii kale way dheeraanaysaa baasha inaan soo marka wadada dhawaan qaadanayna marka nacam rubuc haddaba marka intaan markaa haysano maxaan haysanaa mid hore meeqa haysanay saddexaan haysanaa tana meeqa haysanaa saddex marka waxaan samaynaynaa ru'uustii ogow hadda waxa hadda haysana waa ru'uustii ogow ru'uustii saddex raasi waa ogow ru'uustii marka oo aan idhi maxaan ku magacaabnay maxfuud marka waxaan isku fiirinaynaa almaxfuudayn ama almaxfuudaan baan isku fiirinaynaa waxaan dhahaynaa afartii qayb waxaan u fiirinaynaa afartii qayb ma waxaa ka dhexeeya tadaakhul ma waxaa ka dhexeeya tabaayun ma waxaa ka dhexeeya tamaathul maxaa ka dhexeeya dhahaynaa afartaas hadda maxaa ka dhexeeya marka saddex maxaa ka dhexeeyo tamaathulaa ka dhexeeya sooma maxaan marka qaadaynaa fanaktafi biaxadihima ثم نضربه في أصل المسألة مسألة كده نقعد سبعة نعم عول بوقرت waxay noqotay 21 bay noqotay 21 haddaba markaas ogow saddexdii aynu soo qaadanay waxaa lagu magacaabaa
juz sahmi allah juz sahmi juz sahmi baa la dhahaa waxaa loogu magacaaba firi waa juz cajiiba waay haddii juskaasi haddaan ku dhufano fi asli mas'alati waxaan helaynaa xaasilkii baan helaynaa haddaan qof kasta fardiisa aan ugu dhufanana wuxuu qaadan helaynaa hadda miaal firi soo 21 ma hooyo meeqay lahayd nacam hal bay lahayd hal ku dhufa saddex ay qaadatay saddex ka mid ah min 21 haye ikhwadii oo ahayd lixda liummin maxay lahaayeen laba soomayn laba ku dhufa saddex lix ay qaadeen waa lix qof min hal ay qaadanayn ikhwadii 12 gabdhihii liab meeqay lahayn afar soomayn afar ku dhufa saddex 12 meel u kala qaadanayn 21 waa tas marka jusaym waxa weeyaan waa juska haddaan ku dhufano fi asli masalati waxaan helaynaa xaasilkii dhammaay ayaan helaynaa qof kasta haddaan ugu dhufano fardigiisa qof kasta wuxuu haddaan ugu dhufanana uu ku leeyahay fi asli masala aw fi cawliha waxaan helaynaa wuxuu asaga dhab ahaan u leeyahay xaq aan helaynaa sheekhan uu ku cadeeyay sheekhan muxuu ku yidhi في كل فهو جسام مجدد فاضربه في الاصل اي هذا الفهمي فحاصل ضربه هو تصحيحه فالقسم اذا صحيح وهذا ما هنا القسم الثالث حد كجبته سدح قلو يا مثال وكنا 3 جدات و3 اخوات و3 اعمام 3 جدات 3 اخوات 3 أعمام صح جد سلاد هذا بقى هذا أحسن يسبق لي مثال القسم الثالث يا صفحة هذا أود اللي بسواي هذا مركا سد حجد يسد أخوات 3 أعمام صح سد قروية هذا مركا مسألة مركا بحكي اسمها من ايش؟ وحاب ايش كجرا سدس iyo waxaa ku jiro thuluthaan ku jiro 3 akhawaat liab ayaa ku jira saddex iyo sudus maxaan qaadanaynaa marka sudus aan qaadanaynaa laana way kala weyihiin soo ma tadaakhul weeyaan falmas'alatu min 6 lix baan ku dhisaynaa masalada saddex ayayo marka hal bay qaadanayaan soo ma hal umay qaadanayaan yashtarikaan bixi marka 3 أخوات ثلثان أفروي محل نصاري هل يا قادنيو 3 أعمام تقادنيس هذا مرك أقول سد هذا قلوة ما كتب سنتها سدس وهل سد يومي أو 5 مساء وسد عقفي ثلثان أفرأة و3 أخوات وبقي بسميسو 3 أعمام وهل وصهرتي وما قيب سميسو وحكا جبتي سدح قلوب ما جبتي نعم مركا ما سمينا مركا حتى عن صومرني وما سمينا سمينا قف كستا قلا كستا يسهم ما سكو فيرينا ما سكو فيرينا توافق يتبين مسافر كفيرينا هي عن بالله مركا جدادكي waxa weeye waa saddex hal xabo ay leeyihiin soma hal xabo ay leeyihiin waxa ka dhaxeeya marka tabayun ba ka dhaxeeya markaas oo kale waxaan sameeynaa ru'uusta marka meel dhiganayna naxfadu isku dhufan bayna ogow mid hore wafka uma ku sameeyna bisle isku celina bisleemaan hakan marka meel noo dhig marka saddex madaxanaysana noo dhig hay waxa u maadaa 3 akhawaat maxaa ka dhaxeeya 4 iyo 3 maxaa ka dhaxeeya تباين سد حدنا مال نودك ما كده حي 3 أعمام ما كده حي ايوه هلو سد حي هل ما كده حي تباين سد معانا يسنا مركه سدح معناها متماثلة بانيسا كله waxaa marka maxaan qaadanaynaa marka naktafi biwaahidin hal xabaan soo qaadanaynaa marka ya waxaan ku dhufanayna fi asli masalati ogow marka halka xabaan soo qaadan marka waa maxay waa juz sahmi weyn waxaan ku dhufanayna fi asli masalati oo ah 6 waxay noqonaysaa
18 ومنها 9 هذا مركا فيري toban iyo sideedii marka qof kasta ugu dhufo marka saddexdii qof kasta ugu dhufo macnaha taasdii ayay ma helaayeen oo saddexa hal bay laayeen soo ma hal saddex ku dhufo waa saddex si marka meel u qadanaya arbacatu akhawaat ma yani ثلاث akhwaat soo maxay laayeen afar bay laayeen afar ku dhufo saddex نعم ما قوي وقيم ما قيم نصفك من أفر وقاسوة ما قوي مركز سدح كدر أفر يطول ما قوي عام تيام مركز أيضا هل أقول فوق سدح كسو أديس من هلا ساسي معك 18 ويا أنت واضح يا صبح أيضا مركز سهامت iyo ru'uusta kusoo aaday isku fiirinayna haday tawaafuq ka dhaxeeyo meesha iska waafaqaan wafqigii abba meel dhigayna marka ru'uustii haddii ay tabayno ka dhaxeeyana ayagoo dhan baa meel dhiganayna marka kadib baa markaan dhammeeno ay waxaan isku fiirinaynaa wixii aan xifdina marka maxaa ka dhexeeyaan afartaas tamaathul baa ka dhexeeya kida kan qaadana marka waxaan dhahaynaa jusaan balina marka intaas wey مثال قسم الرابع هو أن يقع الكسر على 4 فرق كسر هذو كدعو أفر قلاد كدعو مركب أفر قلاد كدعو مركب يا محل هنا مركب أفر قلاد زوجتان 3 إخوة لأم 5 جدات 10 أعمام يا هذا دمركي والله هي قادنا يا وهل قبر معنا أمام والله وحلا جوج مناصمة والماء مركا وحربع يا قادنا ربع نوجد كومته 3 إخوة لأم حنا نوجد نعم وفربدين ثلث 5 جدات مع كجرو سدس كون أيوة أسكا دي 10 دي 10 أعمام مركب waxaan ka dhisaynaa min 12 لماذا waxaa noogu jiro rubuc iyo waxaa noogu jiro thuluth soo ma iyo sudus baa noogu jiro kullu mas'alatin fiiha thuluthun waa soo marnay iyo rubucun ama rubucun maca sudusun min ايش من 12 12 baan ka bixinayna marka hadda qacda hadda soo marino waa macnaha 12 baan ka bixinayna marka 12 لأن فيها ربعا وثلثا مجدد ناكو عدام كو عدي اوغو مركا maxaa marka siinayna marka 12 maxaa rubca marka saddex sawjateen baa iskale ثلاث إخوة لأم maxaa ثلثا أفر maxaa سدسا جدادك لabo saddexaa soo hartay 10 iskale adeerada iskale haddaba marka afarta qolo noor taalo qolo kasta waxa la siiyay waa ka jabanta kuma filo sawjateenkii macnaha waa saddex kuma filo ikhwa li umu maxay waa 4 kuma filo macnaha waxaan ka wadaa way jaba galay aan ka wadaa jaba galay jidaadka oo shan ah waa labo uma qaybsamayso casharada imaamka waxa weeye waa saddex la siinaya uma qaybsamayso inta waa faana soo marka aan bilaabno waxaan ka bilaabaynaa waxaan aw marka u horeysa waxaan fiirinaynaa sinfi kasta iyo sihaamta waxaan u fiirinaynaa tabaayun iyo tawaafuq marka casharka kadib markaan u fiirino oo aan dhammeeno maxfuudaadkii aan xifdino meel dhiganay aan isku fiirinaynaa waxaan u fiirinaynaa binisbati ilaa maxfuudaat waxaan u fiirinaynaa afartii qeyb aan u fiirinaynaa النص 4 aan u fiirinaynaa nacam kadib aan midaan kan qaadanaba waxaan ku dhufanaynaa oo ah waxaan ku magacaabaynaa kaas juz sami waxaan ku dhufanaynaa fi asli masalati intaas way qaacidada marka soo akhriya marka insha Allah taala واضح باب المناسقات الموت ثان قبل قسم حصل فصحيح الأولى وللثاني اجعل أخرى كذا واقسم عليها ما قسم له من الأولى فإن لم ينقسم أولا باب أم أبو أذك كوان كان أديك حتى ضد العكر هذا أنت بالعاون نمين بل
munaasaqada baqato aan ka dhex baxno hadday hawshii adkaanaysaa in mawtun geeri in mawtu thani in mawtu thanin munaasaqaadkii meyd baa dhintay dad buu ka dhintay inta aan la dhaxalin aa kuwiyaa mid kalaasii dhintay hadda midaasii dhintay marka wareer waa marka waa isdaba taxantaa marka dhibka waxaasaa keenaya fiiri marka in mawtu thanin thani geeridii oo xasala xasilay in xasala hadduu xasilo mawtu thanin mid labaad geeridii ogo midaa marka hore u dhintay mogtahay qabla qasmin qaybin ka hor fasaxix jawaabti weeye fasaxixi alأulى waa jumlo dhacda macnaa dalab jumlo idaa waqacat hadday dhacda macnaa dalab maxaa lagu daraa fa baa lagu daraa ورم بفا حتما جوابا لو جعل الفيه شرطا لانه غيرها لا ينجعل فصحيح صحيح الاولى مد هوري واجعل يل او يل واجعل يل او يل للثاني للميت الثاني ميت كلمات واحد ويشاء اخرى مساله اخرى مساك الاسمي كذا كلمه كوري حاله من هاتي واقسم غيبي وبي عليها على مسألة الميت الثاني ميت كلمة مسألة سي قيبي واحد وقيبي سا ما نصيب وقيبي أما ديف وقيبي وي قسم لو قيبي أما قيب لو ودقي له الميت الثاني وي من الأولى من سهام الأولى مسألة السهام تيدا قيب لو قدقي إلى تقديرات كبيرة كأبدا هذا مهم أي نقطة ضروري وي فإن لم ينقسم مركا تا مركا هدي قيبسنت waa okay marka fadaaka فإن لم ينقسم hadousan qaybsamin ما قسم للميت الثاني فاضرب ku dhufo markaasi وفقها ku dhufo وفقgeedi waxaa ku dhufataa في الأولى أي في كل المسألة الأولى مسألة oo dhan ku dhufo إن وافقت haday waafaqdo سهامه إن وافقت هدي أي وافقه سهامه سهام الميت الثاني مسألته مفعول مش كحذف إن وافقت هدي وافقه سهامه سهام الميت الثاني مسألته هدي وافقه أو أمس كلها كل المسألة الثانية وعاكدفتا في كل الأولى كدفة إن فارقت أي إن باينت سهامه مسألته هدي كفقاته مفارقة بيان وين وما كذب ومن قفكي له أي سناتي شيء في الأولى في المسألة الأولى فاضربوا كل فوي في وفق الأخرى كل فوق أو في كل الأخرى كل فوق حذف من الأول لدالة الثاني وين تصب الصواب ومن عدي له أي سناتي شيء في الأخرى مسألة اللبات أو كلا في السهام أي يضرب وحال ضربنا إياه في السهام متعلق بيضرب في السهام أي في سهام مورثه بالوغو ضربنا أو في وفقها بالوغو دفنيا في وفق سهام مورثه يا ذا الهمام سيد كانوا نعم وافعل بثالث أي النهر سنقول ويلو سيدي منتهى إنكارتو ما شاء مرك وما حي وحال شيء يا مناسقاتك hadday dee qaybsanto laa ba'sa hadday qayb mayd baa dhintay wixii yimid haddii kuwii joogay u qaybsanto laa ba'sa sharcna waa kugu ishaartaa taas wax dhiba kama jiraan wey ka zawjin wa ukhtaani liabin ka zawjin wa ukhtaani liabin gabdhihii ayaa marka mid dhimatay waxaa jooga naag baa dhimatay waxay ka dhimatay ninkeedii iyo laba gabar oo isku aaba yihiin ay ka dhimatay iyadoo aan la qaybin dhaxashii ayaa haddana waxaa dhimatay labadii gabar baa mid dhimatay haddana waxay ka dhimatay gabadhii kale iyo gabadhii dhashay taa marka waa iska caadi marka mas'alada hore waxay ka dhismaysaa min ايش min sittatin sababtoo maxaa noogu jiro ukhtaani maxay qaadanayaan ثلثان اختان لا ثلثان بقادنا نعم
اختان الاب واي اختان الاب waxay qaadanayaan ثلثان واي ثلثان بيقانا صح ومن ثلاثة واي زوجنا محو قادنايا waa labo iyo maxaa ka dhaxeeyo saddex isku dhafaad maxaa noo soo xasilay marka masalada marka saxad min sittatin zawj muxuu qaadanayaa saddex uu qaadanayaa maxaa noo soo haray saddex ukhtaani liab ayay u imaanaysaa haddaba marka intaanan qaybin ka hor ayaa waxaa dhimatay gabar dhimatay marka nacam gabar ayaa dhimatay wey waxay ka dhimatay marka walaasheed iyo binto ayaa ka dhimatay wey marka masala noocaas marka waxay gaaraysaa markii saddex markii ay noqdaan ilan thuluthaan ayay leeyihin soo ma sita maxaa u thulutha afar soo ma afar ay leeyihin marka min labay u qaadanayaan mogta marka sabci gaariya marka sabc cool sabci ku gaaraysaa macnaha nacam saas wey marka wax dhiba maaha haddaba marka midda dhimatay mee qeelada marka laba ay leedahay soo maha laba ayay leedahay waxay ka dhimatay soo maahan walaasheed ku aabba ah iyo gabadheedii waxay kala qaadayaan marka min hal wax marka oo jajaba ma gelaya soo iyo wax xisaaba geli mayno waa iska nadiif waa fahna soo ma nacam الشيخ ماشي كيري ورجع الشيخ معكو يري واقسم عليها ما قسم له من الأولى سوجد كيدي قف كيدي انتي قيبتي او مدي هورا كهلي ايا waxaa kala qaybsada kuwa kala Soomaali waa iska waadix taama ku dhamaatay fa in lam yanqasim marka meesha ugu darkan fa in lam yanqasim fadli fi al-ula ka wargeysa marka meesha undur marka hadaysan qaybsan marka waxaan sameeynaa فإن لم ينقسم نصيبكي أما ديفتي أو قيبتي هوري وما قيب سميسو عدد رؤوسكي ماشي يالي مركا waxaa la sameynaya mas'alada thaaniyada ah ilaa laba mas'ala baan dhisnaa moogtahay marka hadda maxaa sameyn hadda waa dhisnaa moogtahay mas'aladii marka midii hore waa dhisnay midii labaadna waa dhiseynaa ilaa waxaan u dhiseynaa dhaxashaan timid baan inaan kala qaybin aan doonaynaa marka laba mas'alo ayaa ka soo baxaysa meeshii laba masalo ayaa ka soo baxaysa meesha marka waxaan sameynaynaa nasiibkii thaaniga ahay qofkii labaad ee nasiibkiisii uu ku lahay min al-ula inaan xogaa qoraa fiican aan ku dhigaysan ameer nacam طيب جزاكم الله مثل ما واحد انت مثال waxaa meesha jooga زوج كومية زوج iyo زوج وأم iyo وعم kadib haddana zawjkii baa wuxuu ka dhintay maata can zawjkii wuxuu ka dhintay can maata can 5 baniin ayaa ka dhintay markaad ogaa marka laba masalo ayaa meesha noo imaanaysa marka ya inta masale ka imaanaysa ileen shantan wiil waxay doonayaan inay dhaxlaan waxay doonayaan aabood bay doonayaan soo ma qofta dhimatay marka yaa dhintay zawjaa dhimatay soo haye saddexdana maxay doonayaan inay dhaxlaan zawjadan ilaa zawjadani waa ninkeedii hooyadeed iyo adeerkeed ya nacam marka laba mas'alo ayaa meesha isku timid marka haddaba marka aan dhisna marka zawj muxuu qaadanaya zawj muxuu leeyahay nisfi uu leeyahay waa iska caddahay umma waxay leedahay marka hooyana hooyo walad weyse waladu walad weysay thuluth bay leedahay ya marka waa min ithnayni iyo macnaha waxay ka baxaysaa labo
iyo saddex maxa ka dhexeeya marka isku dhafo marka ya min sita marka marka masalada aan dhisno marka min sita soo ma nacam haye saddex wuxuu leeyahay marka saddex uu qaadanaya marka soo ma saddex si وما حيلده ما ثلث بلده معناه ثلث ما ثلث بلده ما كان ستة مع ثلث لا ثلث نعم هي هي ما غاب هاي مركه سدح لبو شنب هاي صبان هل كم حقوق قادنيا تعصيبا عصوا قادنيا انت سوسك بي بي سنيا والله شيء لي نعم هيا مركا كوا مركا محرم مركا إني سدحان بيبين مركا صبا يريدون إن سدحان قاتنا كمان مركا صبا مية قبل سبسة مركا مو قبل سبسة يا قبل سبين مركا ما حسب هنا فريق شرح فريق مركا وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى ثانية نسيبكي ثانية واكي شنتا ويل واي شنتا ويل نسيب كود صدحة يكون ليهين من المسألة الأولى واي يا إلى تنا مسألة صباح تنا مسألة واي هذه مسألة أولى في رياض أنا عاد فانتان فعاش كان عاو لبدان بابا وفائدة بدن لا عاد فانتان مهم إنه وهذا مهم واي وحوالي الأردن كوا كلا واسك تركات وعديك الدرعة كراحتها أنا فانا باب كان تنوى محي مسألة ثانية ها تصل بعدها فإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته مسألة مركب محي نصيب الثاني من الأولى على مسألته ما مسألة سبحان الله وضع شنطان بالله وضع عدد رؤوس بالله وضع معناها سدح ذان معناها أو ديفتان هوري أو زوجك أو قدنتي وما قيب سميسو مسألة لا شنطان وما قيب سميسو سدح ما قيب سنتو سدح شن ما قيب سميسو معناها مركب waxaan samaynaynaa in baayanaha حظ ميتها أما هذا وافقه مركب waxaan samaynaynaa ضرب في الأولى المسألة الثانية ضرب في الأولى المسألة الثانية هذا لحبة waxaan ku dhufanaynaa shan ku dhufo marka ilaa mas'alada hore waa lixdan aan ka soo qabsanaynaa ya mastana waxaan ku dhufanaynaa mas'alada macnaha ruusta laga wadaa marka ku dhufo shan lix ku dhufo meeqa waay 30 ma fiirna marka haddii macquulta aan fiirino haddii marka ka qardanto oo ay si sax ku imaaweyso haddana ana ku laabataa haya marka haya 30 aakhirna marka maxaan sameynaa marka نعم مثال المباينة نعم فحظ الزوج مركب الأولى 3 فتصيحان من 30 موجود من 30 مركب قاعدة مركب وحدينا من له شيء من الأولى ضرب في الثانية من له مركب حارنا مركب صدم كان قف كستئنا سنة سما يا مركب مد دور يا حكومة مركب أو حطونيو إلا نك هذا وادي أنت مقتهي gabadhan macnaha hooyo iyo cam xulis u baahan soma shantaana waxay rabaan saddexdan bay rabaan waxay ku yeeshaan soddonka inay qaataan intaas la faana soma marka qaacidan ku saamaynayso shiq firi waman lahu shay'un fi الأولى فاضرب في وفق أو في كل أخرى haye qofkii wax ku leh waman lahu shay'un qofkii wax ku leh min alأولى ضرب في الثانية ثانية shan maan marka fiiri hooyo soo laba ma lahayn laba ku dhufo shan ya ha maya waman lahu shay'un qofkii wax leh waxa lagu fiiri waman lahu shay'un min الأولى hooyo maxay leedahay soo laba ma laha labada waxaan ku dhufanaynaa fi الثانية oo shanta ah معناه حاجة في المسألة الثانية وضعها كله في مركز شن كله في لبق ما قوي طبعا قر مركز وهذا مركز هي حاجة طبعا 10
من 30 واي توسطه كم إذا قادنا يسا ها ما وقتها لكن ده صح ثلث وقتها لكن ده صح بس ده معناه ما واي لكن أنا نقول هذا صبا هاي عم حولاي هل بولا صبا هل كله في الشن بو يسسن صبا نعم معنا يسنا شن تمرنا يسنا هاي ومن له شيء شيء حدنا ومن له شيء من الثانية سوكون مركبان ومن له شيء من الثانية ضرب في سام مورثه هو يا شن كله فسدها معنا ها شن كله فسدها معنا وعشان يتوه مرك حقوق هذا من سدح حقوق هذا مرك انت واضح صح انت عدد نعم marka waxaa la mid ah marka waxa weeyaan waa ayadoo aan waxa weeyaan tabayan macnaha mubayano way muwaafaqadana waa la mid saan u marsiinaysa marka qaacidada sheekha qabso marka waman lahu shay'un في الأولى فاضرب في وفق أو في كل الأخرى تصب ومن له شيء في الأخرى في السهام يضرب أو في وفقها يلهم موجود قاعدة شيء كسي مركب قاعدة أنا كتب بقصة تاوي وافعل بثالث كما تقدم إن مات والميراث لم يقسما وكل صورة وافعل سمي بثالث بميت ثالث وي مسد عدو حاكو سميسا كما تقدم سيدي صور مرتوي إن مات هذو أنتم معنا ثالث كاس والحال اللي انتوي الميراث دعشينا لم يقسم على قيمين متك لبا نت وكل صورة كستا ناسقة ومدي نسقيس وكتقول سيسو للأولى مدهور فهذه مدني طريقة للمناسخة وي نعم تنا أيضا أعنه لما لهم أيه انت انا دي عاول عني اوكي حسابي عاول منافقه هذا عني او يلا صعد مركه في مركه مثال ان قرنا مركه وعاد انت زوج خاص مجدا فمثال مجدا صير معناه زوج وام وثلاث أخوات متفرقات نعم 11 حين متفرقات كبغي انت صمان maxaan ka wadnaa uktun liabin uktun liummin uktun shaqiiqa waay taas baan ka wadnaa ya nacam haddaba marka waxaan samaynaynaa zawj muxuu qaadanayaa nisfi buu qaadanayaa uma maxay qaadanaysaa sudusay qaadanaysaa ukhta shaqiiqa maxay qaadanaysaa ukhta shaqiiqa maxay qaadanaya nisfay qaadanaysaa nacam marka dee waxaa marka ayo ukhta lumna maxay qaadanaysaa iyadana keligeed waay sudus waay marka waxaanu marka sudus waa haysanaa mota dhib ma lahan nisfina waa haysanaa waa kana marka falmasalatu min ايش labo فالمسألة من 6 انظر لكن waxay tegaysaa oo arki doonaa insha Allah taala waa bixaysa wax yiri soo kaasho dhageyso marka inta anagoo haysano ayaa hadana maxaa dhacay ثم مات الزوج عن 5 بنين ثم مات الزوج عن 5 فيري wuxuu ka dhintay 5 wiil buu ka dhintay بنات اوكي لا بس هي حسبي اوكي و10 marka lidna كلمه الحدث كذا marka صح marka 15 ay u baahan 15 u baahan marka 5 baniin iyo inta ina madana fiican xogaa
لا بس ده ايه 5 بنات هاي ايوه كنتي ninkaan baa كنتي soo xoolihiisa ku fadhiyaan soo marka waxa weeye هذه مسألة tabarka waa مسألة أولى soo tan muhiim ya firi مسألة أولى waay ya مسألة أولى waay tan waa maxay tan muhiim inuu tan ogaataan مسألة ثانية haddana waxa u baahnaa mas'ala saddexaad marka ila inta tan waa soo barana mogtahay haye ثم مات أحد البنين عن 4 بنين iyo 4 banaat haddana wiilashaa mid ka mida ayaa wuxuu ka dhintay haddana wuxuu ka dhintay can 4 مات ثم مات واحدهم marka أحدهم أما أحد البنين wuxuu ka dhintay can ايش isna عن 4 iyo 4 هذه مسألة ثالثة موجودة مسألة saddexaad waa markaas ku dayo marka qof kasta marka waxa uu leeyahay waa fahmi karnaa mugta iska caadi waay taasaa muhiim inuu taso haye intaa marka waxaan samaynaynaa mas'alada koowaad mas'alada macnaha uula waxay ka ansaxaysaa min 9 laakiin dee cool ahaan bay ku tegeysaa cool bay ku tegeysaa macnaha dhib malaha taas adiga min 9 bay ka xasilaysaa nacam ثلث baa nagu jiro iyo 6 ka soo adi waxay ka ansaxay min 9 soo ma halkaa nagu qor marka 9 bay ka ansaxaysaa midda hore nacam midda labaadna waxay ka ansaxaysaa min 15 ilaa waxaan naqaa sheekh maxamed soo yiri dhegeyso sheekh wuxuu soo yiri in mawtu thani qabla qasm hasala fasahih al-ula walithani ij'ala ukhra marka waa inaan dhisnaa marka waa dhisaynaa soo ma haye تكلم waxay ka ansaxaysaa min ايش 15 aribaan ba uqor laakiin 15 iska caadi 15 bay ka ansaxaysaa tanna 9 bay ka ansaxaysaa haye شرح موجود hoos fiiri المسألة الأولى من 9 والثانية تصح من 15 haye marka waxaan rabnaa marka qaacida marka waxaa jirta markay 3 mas'alo ay timaado waxaa la sameeyaa 2 mas'alo baa la isku daraa marka 2 mas'alo hore waa la isku darayaa waxaa laga dhigayaa hal mas'alo al-ula lagu magacaabaya midii saddexaadna haddii ta kale loo fiirsado waxay u noqonaysaa thaniya haddaba marka saa isku dhex gelina marka fiiri labadaa mas'alo aan isku dhex gelinayna damji markii aan helno jaamicadii labadan waxaan jeclinaya markaan helno kadib baan u tagaynaa midaan intaa mas'ala fahne marka u horeysa inta isla fahma macnaha waxaan labadan mas'alo baan iswaafajinaynaa xaasilka nooyan baan inta aan dhiganaynaa kadib baan tan u tagaynaa ya fiiri marka waxaan dhahaynaa labadan mas'alo nasiibu lmayit الثاني min الأولى ila waxaan idhi mogtahay midda hore waxa weye waa min 9 soo ma haddaba marka meydkan labaad ee macnaha nasiibu lmayit الثاني min الأولى wuxuu ku leeyahay zawj muxuu ku leeyahay macnaha 9 بالنسبة adiga معناها 6 واي إلا 6 معناها المسألة من 6 من 6 معناها من 6 واي marka 3 كلها معناها 9 عول 9 فيرن adiga معناها 9 فيرن 6 كلها marka soo نعم soo jimcuna waa nasiibi waa maxay 3 waa inaan ku qoranaa sidaas aan ugu wareerin haye saddex marka waxa u fadhiyo nimanka marka shantan qolo maartay aa u fadhisa marka kan u fadhiyaan shan ma waxa way waa 10 iyo 15 bay noqonayaan ileen wiilashu macnaha waxaan ka dhigaynaa 5 kale marka waa 15 lidakari midlo ilaa waa 10 madax oo wiilal ah iyo 5 gabar wey ilaa waa 5 wiil laakiin 10 aan ka dhigaynaa naam haye
marka waxaan filayaa marka nasiibu lmayit الثاني min alأولى ثلاثة marka maxaa ka dhexeeya marka waxaan isku fiirina asaga isaantiisa 3 iyo 5 maxaa ka dhexeeya macnaha aan 3 iyo 5 iyo 10 maxaa ka dhexeeya muwaafaqة bثلثة kan ثلثة ka baxo hal baa ka baxo 5 iyo 10 maxaa ka baxo 5 macnaha 5 baa ka dhexeeya haddaba marka waxaan qaadanaynaa marka ثلث ال15 baan qaadanaynaa marka oo ah نأخذ 5 waxaan u celina wafqiga u celinaa marka ru'uusta soo marna muu taxtaa mar kastaba ru'uusta marka ru'uusta wafqigooda meesha tirada ay ka waafaqayaan oo 5 ayaan qaadanaynaa marka oo ثلث ah oo 5 ayaan qaadanaynaa markaas baan waxaan ku dhufanaynaa في المسألة الأولى oo ah 9 ku dhufo marka 5 ku dhufo 9 meeqa waay ya 45 soma 45 nacam marka ogow marka waxay noqoto ogow marka hadda marka waxaan kulminay labada mas'ala marka waa cunna marka هذه تسمى جامعة الله جامعة waxay kulmisay mas'alatin ya تسمى جامعة فالجامعة هذا ما دام قصة فالجامعة ولبدي مسألة أو حاصل كودي لسكان واي إلى تنبان تن قدر بني وفق جيدي حياة كده فني أو كاملة أو سيارة نعم وجدنا وعنا اللي كو هذا مرك حسابنا مرك للأخت من الأبوين من المسألة الأولى بحكي كل هذا أخت الأبوين أخت الشقيقة maya masaladii hore maxay ku leedahay nisfi ku leedahay mugtahay 3 ku leedahay macnaha ya nacam 3 waxaan ku dhufanaynaa ogow waxaan ku dhufanaynaa 5tii oo wafqan ku dhufanaynaa marka 3 shan ku dhufo 5 sii marka 5 waan siinaynaa inta marka baneed ay isfiya inta ku xisaan أخت شقيقة maxaan siinay 15 baan siinay soo ma haye maxay leedahay sidaasoo kale alأkhtu min الأب hal ul waay soo ma hal ul waay أkhtu liumna hal ul bay leedahay ul marka hal ul ku dhufasho marka 5 bis waxaa la mida liumin iyo liab labadaba waxay leeyihin min hal way leeyihiin 5 ugu dhufo 5 u soo baxday ya maxaan kana war marka الأم sidoo kale 5 leedahay ilaa waa 6 hal ul waay hal ul ugu dhufo نعم ها صح waay الأخوات baa jooga 6 hal ul leedahay ugu dhufo marka 5 ayada نعم meeqa haysana marka ya 45 ma helna ma weli waxaa ku dhiman weli waxaa rabnaa ها زوجكي مسألة سياق زوجكي وحي أولى هاي ويلش كوا بانوها رمكت زوج بحولها مركب 6 صوبان 6 كنا فشل 15 وحي كلا قاضيان قبر كستا ويل كستا وحولي لبا قلبولي هاي قبر كستا وحي ليدا هاي حال قلبي ليدا هاي حصلت المسألة فصل هذا ويتنا نص اللي مولي عندها تاجين ويتنا نص اللي مدو باش مدو شو عمل ايه؟ مدو باش نعم مثلا مركا جامعة مركا واحد لا صبح نعم ويلش بحيرية مركا ويلش كوان 5 بنين ما waxaan ku qorayaa 15 iska dhaadiga ma 15 way 15 leh ha 15 adigu iska dheh ما هو meeqa waay ما اسكندر كله معناها كذي ها 15 اسكليين جامعة مركب وعنا سوا هاي نعم حتى وحان قايلها مركب صارت هل المسألة عمل مركب انه قطمر سوا اللي واتنا جامعة دي هل المسألة انه قطمر وحاول تقينا مركب
nasiibu lmayit الثaaliثi oo ah ibni marka fiir ibni kasta marka muxuu leeyahay oo wiil ah laba leeyahay soo obna laba leeyahay labada markii yaa u fadhiyo waxaa u fadhiso afar wiil oo aan ka dhigayna 8 wiil iyo 4 banaad afar gabar 12 qof oo fadhisa marka 12 qof waxay rabaan inay labadii oo wiilasha mid ka mid oo lahaay oo dhintay inay qaybsadaan oo ma qaybsamayso macnaha laa yumkin sawa marka maxaa sameynaa nasiib marka tasiixu marka waxay noqonaysaa marka masaladu waxay ka xasilaysaa 12 ay ka xasilaysaa saladu ilaa waa qasab 12 ayaa lagu qaybinaya ayaa lagu qaybinaya ay ka saxaysaa waa tasiixu masalatu 12 in la gaarsiiyo waay ay ka xasilaysaa masaladiisa marka maxaa ka dhaxaya marka macnaha waxaan ka wadaa masaladooda maxaa 12 waay faham markaan leenahay masaladooda waxaan ka wadnaa cadad ru'uusi baan ka wadnaa macnaha masaladooda 12 qof waay macnaha 12 qof waay 12 qof waay nacam 12 qof waay aye laba sahmi iyo 12 qof maxaa ka dhaxeeya muwaafaqa mase mubaayana ka dhaxayso muwaafaqa binisfi labaha way kala barantaa 12na way kala barantaa 6 iyo 6 kala qaadina soo nacam waxaan qaadanayna marka ru'uustii u celinaa muwaafaqadii 6 ra'si ha ru'uusta qaadanayna 6 ra'si baa waxaan ku dhufanaynaa xagee ku dhufanaynaa inta ku dhufanaynaa فيما صحت منه المسألتان أو جامعة دي سيدة كنف أفرتني شان كنف ما قوي سيدة حب هاي قرسة 45 نعم والله ما بقول إتواتهم واي هذا كنف لا بقول إتواتهم واي هذا كنف عادي لا بقول إتواتهم واي نعم هذا كنف ضربتين 270 ayay noo gaartay marka 270 bay noqotay 270 baa kulligood loo qaybinayaa hoos ka fiirso lizawji minha 15 madruubatan fima darabnaahu saas baa loo wadaya marka sida marka هذه هي القاعدة intaas marka si nadiif ah qaybsanaya marka shayxana aan kugu sheegay nacam sawaad xamaan إلى قاعدة فانا بس مهمة قاعدة أنا فانا مهمة إلى قاعدة اسمها نعم زوجك يوحى أولي هاي محو كل هاي شنو تمام سمعين ها شنو تمام كل هاي معناها مركي مسألة دي سي المهيسي شنو تمام أي أسوه هلا سوا أي أسوه هلا شنو تمام waxaan ku dhufanaynaa marka فيما ضربناه في 45 نعم waa sitadii 9 bay noqotay uqta min laweyn sidoo kale ayadana 9 bay qaadanaysaa uqta min lab waxay qaadanaysaa shanahan kullu ku shay kada la marka في الترك تدريب سام كل أبدا واقسم على تصحيح ما قد وجد وخذ من طريقة في السريح انت مركا محاسب ان ما اخرنا وقت ما يستان بين اسكال بينهم بين غنيسا واخرنا ان شاء الله واحد بدكم مجرو واحد فاهم كرت عارف اسك بنينا ان شاء الله قسمة الطريقات يضرب كلفه سهم كل mid kasta saamigiisa abadan weliga fi taariikhda ku dhufooy waqsim qaybi ala tasxiix way ma qad wujida wixii la helay oo ama si khud qaado min tariiqati fi sariix fi alqawl sariix binisbة sihami qaado way li tasxiix u qaado macnaha markii tariiqadii xoolihii laba qaab ayaa loo qaybshaa xoolaha markii $100 hadaa qaybso macnaha $100 laba qaab ayaa loo qaybiyaa na dhintay wuxuu ka tagay $100 سأو قبل سامرك مثلا بوحو كتغي زوج أخت لأب حصل كل شيء زوج وأخت لأب ترى كذا نوام حي مثلا 4 دراهم هذا أقول مثالي لكن فالمسألة من إيش؟ من 6 اللي وحى كجرو
waxaa noogu jiro nisfo iyo nisfu wasudus baa ku jiro marka shantaan ka qaadayna marka almasalatu min sittatin tacuulu ilaa ثamaaniya sababtoo ah sawj wuxuu qaadanayaa saddex ayuu qaadanayaa oqtali ab waxay qaadanaysaa saddex bay qaadanaysaa hooyo ayadu waxa weeya waa thuluth waay nacam thuluth waay hooyo maxay qaadanaysaa labay qaadanaysaa marka falmasalatu caalad ilaa ثamaaniya laakiin hiya min ايش نعم ما تعول من 6 تعول إلى 8 نعم سوج محو قادنيا هاي 6 محو قادنيا وقت الأب محي قادنيسا وقت الأب محي قادنيسا 6 محي قادنيسا لح نعم محي قادنيسا الله محي قادنيسا هاي 6 وحا ثلث الله موقته 8 قالت مرك ومنها 9 مرك كان صحيحه نعم هذا مرك waxaa la sameeynaya sheekh wuxuu ku yiri idrib ku dhufo sahma kulli waarithin fi tarikati hada badana ba zawj muxuu qorayaa soma saddex tarikada meeqeed 4 dirham soma ku dhufo marka meeqeed maraysaa 12 baa maraysaa marka 12 baa waxaan u qaybinaynaa ala 8 sideed baan ku qaybinaynaa marka زوج wuxuu qaadanayaa markaan sideed u qaybino xus waxa soo baxayo hal dirham iyo barba soo baxayo ana dariiqa oo iska qaabka wixii meeshii yaalay qaabka loo tirinayo bis waay hasku marka ama qaab kale waxa ka sii fiican baa jiro sheekh wuxuu ku yiri oo khud qaado min tariqati fi sarih bin siyab tana waa maxay qof kasto waaritha wixii uu saamigi oo yeeshay baa waxa lagu fiirinayaa xoolaha meeshii yaalay مثل ما الزوجة بعد متي معناه زوجة يا جوكتا زوج بعد انتي وحكا انتي عن زوجة وأم وعم زوجة محيلة هاي حدي إلما أوسن جرين روع بيغانسة من 4 ومنا محيلة هاي ثلث واي من 3 محاكا دحيو تباين ما يسمى سكونه فما يقوى مرك إذن كله في معنا 6 غرف لم يتوم واي فالمسألة من 12 وحكتك يا مركز $100 ترى كم 100 دينار $100 بقول بكتك $100 سجمحوا لي مركز سوما سدح سجمحوا لي هي سدح بقول لي سوما سدح حديثي وكل هاي مسألة بان waxaan u fiirinaynaa $100 baa saddex ka dhigaynaa marka meeqo yeelanaya marka معناها دي هدا كنا سدح دي ربع وحوي 25 واي معناها يا دي ربع بو نقونيا markaas afar aan qaybinayna macnaha afar aan qaybinayna thuluthkii marka fiiri wuxuu oo lahay nisbadii uu ku lahay mas'aladiisa ayaa waxa loo fiirinaya lacagtii meeshii loo fiirinaya macnaha ya naam rafooda marka wala sameeya dadka fiirinaysa waa u qaybinaysa marka shaqo macallimtana sudus marka lacagtii qorto waxa lacagtan maxaa u sudusaalida lixa marka aad u qaybinaysa lix way soo bixi marka qaab noocaas macnaha iska fudud wixii meeshii yaalay aad qaybsanaysa bis mariiq ugu fudud waay haddaad taqaano qof kasta waxa uu leeyahay hada garanayso sharca marka fiir marka baabu raddi والرد نقص هو والرد نقص في السهام زيادة في النصف في النصب والأقسام فرد والرد أما حي رد سكو حويان حوله ماشي يالي يددك حولها فرابدان قولي مركي وحي إذا قاتان يا أيا حولا بدن أيا ماشي كسي هاريا وي marka waxaa loo soo celinayaa haddana kuwii ayaa loo soo celinaya الرد ويان أبوابta uusan ka hadlin bay kamid tahay kitaabka li الرحبية لما يتعرض إليها والرد ردقي نقص ونقصان وي هو أصغب في سهام هذه زيادة ويان في النصب معناه waxaa laga wadaa dadkii baayar oo nuqsaan ku jirta dadkii cadadkii meesha joogay ayaa wax yar ah marka waxaa lagu magacaabaa naaqisa dadkii macnaha meesha joogay ayaa wax yar nuqsaan ba ku jirta dadka iyo wax yaala hadii sila kaana maxaan iri caadilay baadina soo hadday ka bataan maxaan iri hadii dadka hadday bataan
عول خاص marka waa saddex masalo isdaba taalo way fiir marka haddaba marka cadadkii baayar laakiin maxaa dhici ziyaadatun fi nusabi qof kasta dheeftiisii baa loo badaa marka qof kasta dheefta ula ayaa loo badanaya waa intaas baa loo soo celinaya haddana biqadri xisi baa loogu soo celinaya hoos baan kugu sheegay ummun wa bintun ummun wa bintun marka waa maxay binta waxay ka baxdaa macnaha nisfu waa labay ka baxdaa ummana maxay ka baxaysaa thuluth maya sudus waay ilmaa jooge kaamil نعم ومن ستة فالمسألة من ستة هو يوحي قاد حلو لي قادنيسا بنت محي قادنيسا نصف ستة يا قادن maxaa soo haray laba ul baa banaan ku dhacda marka yaa qaada marka waa la soo celinaya marka waxa lagu soo celinayaa biqadri xisasiimuyan hooyo waxay qaadanaysaa labadaas lug rubcahuma ay qaadanaysaa bintana waxay qaadanaysaa ثلاثة أرباع معناها ثلاثة أرباع بالله هي قادنيسا لأن محايا دي فرض البنت على فرض الأم معناها تزيد على فرض معناها مثل فرض الأم 3 مرات ويان شرع كفير مركا نعم فرض علوي على ذي الفرد أسو علي دون مين بين الآن وي أسو علي بقدر فرضه فرض كيس قدر أسو علوي سوى الزوجين هديك وحكي ماذا قرابة النمو زوجين دي قرابة اسكم آني اسكا دقاجنا يعني إلا كوة دشماني معناها كوة دي المعذرية تاسنا دي عصب أمبا كوة باكرتا هذا دي دول فرد أمبا وعلى سينا يا مركب مكتح دول فرد أمبا وعلى سينا يا واسكا دقاجنا يا نعم باو ذوي الأرحام ثم المراد بذي الأرحام غير ذي التعصيب والسهام وقد أتى في إرثهم خلاف العلماء وهم أصناف 4 كولد البنات وساقط الأجداد والجدات وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل والغرابة ثم المراد ولا جيددا بذوي الأرحام أرحام تلقوه وكما ننعى هو يكيمدين غير ذي معنى ابتيالي غير ذوي التعصيب وكوا عصباء مصاحبين إيه والسيام أصحاب الفروض معهن أصحاب العصبة معهن أفانا سمع ذوي الأرحام بالينا وقد أتى وحايمد في إرثهم دحل إلا الصيو خلاف معناها حلقة وذا في كيفية إرثهم قابك لو دحشينيو خلاف باكو سوينوي للعلماء علماء وهم يقول أصناف 4 أفر قلوي كولد البنات بس من أوريو وحبعي وميتك أي ونسب الشيطان وأولاد البنات أولاد بنات الابن وإن نزلوا أولاد بنات معناها ميتك قبديسي قبدي أو ميتك كوي أي سيدان نعم وأولاد بنات الابن وإن نزلوا كواس لكن كوا وحوي وكوا كوي مد نعم قبلها دلوي نعم بنات كيف أنا معناه marka nasabkooda wuxuu gelayaa dadka gurasa wuxuu gelayaa meedka macna nasabkiisa geli mayaan mogta ya nasabka meel kale ayuu aadaya marka waa arxaam baa lilaa marka saa ogow arxaam ayaa la yidhahdaa saa la socdo qismiga labaad waxaa weeyaan iyo wasaaqidu ljadaati wakasaaqid ljadaat wasaaqidu ljadaati jadaad kuwa dhacaya waa kuwa macnaha arxaamta ayagana kuwa dhacaya wey waa qismiga labaad waxa weeyaan حاولتنا كأبي أبي الأمي كأبي أبي الأمي موت كهويديس أضيق دلي كيسير لي نعم أرحمت نعم إيه والجدات أيونكي كأمي أبي الأمي عباس نحن الموت صوم نصام عباس لا ما نحلين بقى لا حاجة كلها بقى ما حد ما كان إنسان تدشي بس كده غاجين إنسان الصاغدون دعيوي قسم فرض وكوارا وولد الأخت ولد الأخت قسم السدحات ومن ينتمي إلى أبوي الميت أولاد الأخوات بنات الإخوة نعم
iyo wakalcamaati iyo wakabanaati alcami wakalcamaati waa qismiga afraad wey alcamaamu lilum waay alcamaam lilum waa lamid macnaa eedayaashii macnaha meydka hooyadiis ayay u yihiin macnaha u yihiin eedayaal u yihiin alcamaam walcamaad waa xaggee marka dhinacaasay ka imaadeen marka waa abtiyaal iyo dhinaca hooyo waxay ku yimaado waa mogta dhinacaas wey iyo wakabanaati alcami walkhaalaati mujida macnaha habaryaashii wa fiihi waxaa ku sugan booshiiqa yidhi madhabaani marka markii meedkii dii wax dhaxal la waayo oo u yimaado wax dhaxal la waayo ahlu farad iyo casabo haddana baytulmaadki baytulmaalna uusan jirin waa ka dambeeyaan shaaficiyada kadib baa ayaga la aadaya culamada qaaraa qaba laakiin ay dhaxlayaan asalaanba culamada qaar ayaa qaba wey wa fiihi waxaa ku sugan marka qaabka dhaxashintooda madhabaani dan najaabati ya da najaaba midka saaxiibka fahamka الnajaaba macnaha aan dhahay ama wanaaga waa jamcu waxa weeye waa najaaba waa najuba najaabatan fahuwa najiib faciil oo lagu jamciyey nujaba najiib nujaba kariim kurama ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاه ما قد جعل فيه نعم نقول الله marka waa wanaag wey kariim marka kariim iyo najiib waa wasnan iyo isku wasan waan isku macno wasnan waa macno kariim iyo najiib kariim kurama najiib nujaba wey ficilku waa kasomaan karuma kana waa najuba karaamatan najabatan waa soo hakada والراجح سيده راجحه التنزيل وي للقرابه علماء لما قاب ايا لو دخل لما قاب قرابو اما تنزيل قرابه نمو مثلا بهذا قرابه نمدي الشيخ بيقول التنزيل تنزيل كهوريه صبا التنزيل قف كسته waxa la dajinaya qofku u soo dhow yahay مثلا بولد اولاد البنات intaan keenaynaa booska banaadkan keenaynaa saasaan ku dhex sheegaynaa marka banaadkii waxay qaadanayaan baa la siinaya ayaga waa fahanaa soo ma taa waa qodob wey waa madhabu tanziil madhabu lqaraabati ayaa jira wey haddii darajaadkooda iskhilaafsan yihiin qudima alaqrabu falaqrab waa soo barana soomayn fabda bidi ljihaati uma alaqrabi soomayn kadibna bilquwati عشركي حالان كسو مرة سمين نعم وقاعدة مهمة وين هذا مثلا هذا مثلا مثال هذا دان كثير هذا بنت البنت يا بنت البنت يا هري بنت البنت يا كورز أغرب وين نعم هذه لكن أساس خلاف jihaadkooda waa isla ibni macnaha bunwanimada meesha taal matal kasoo qaadba waa isma khilaafsano markaasi waxaa la fiirinayaa man yudlaa biwaarithin kan waa kusoo dhawaada waarith muqadamun calaa man lam yudl bihi hada mithaal fili bintu libni iyo binti yaa horeeyo bintu libni yaa horeyso لأنه على بنت الابن حقيقة نسبية قاطع لكن بنت البنت مغشين ولي هذا فرض معناها فرض مكسوبرنا وما يسمى marka kan ku soo dhawaaday waaridka ayaa ka horeeya kan waa inta way qaacidadan baabkan asagana wa kullu mafquudin mid kasta oo la waayay iyo waqunta uskila iyo qunta mushkilki macnaha waa la yabshiye iyo xamlun iyo uurkii xamligii hee alyaqiinu yaqiin ayaa cumila fiihi wujdihi labad waay alyaqiinu yaqiin ba cumila fiihi fiihi fi lkulli waay fiihi fi lkulli saddex masalo weeyaan mafquudkii la waayey khuntaa mushkilkii ila mafquudkii waa la waayey haddii dad hadday joogaan oo dhaxash ayagana waxa leh dadkii wuxoodii baa la siinaya wixii lahuba baa la siinaya asagana wixiisa waa la joojinaya hadduu nool yahay oo laakiin aan lahin
إلا إنه نلبى الوجه موتى إنه جريس لما أوج بحيث يوقف ولا جنيا وعالم يأخذ فيها مشكل لو حبين بولي كي هاي كي دمرك كي رجع كي دمرك ولله ما وصل العدن حد إلا إنه هدوه متقان أو يا نين ما خلصين يا زما هدوه كلام عدا مركا وحي أن كلا عدينا ولا الجن وحي اللي هو منه ولا بحيريا dadkii marka la yaqaanay intii loobay ah wuxuu la siinaya asagana yuuqaf sharax ka fiiri waa dhowr qaab la marsiya مثال بدل ما شرح كثير نعم اللي مر waxa la qadaraya ninima la qadaraya mar dumarnimo ayaa la qadaraya marka hore bas loo dhisaya ee lama yaqaan moogta نعم شرح سبحان الله في صعبين حملي والله ميدو مرق با مسوا دمر لما يقان نعم واكا مثال بدل ما كبحيا markaas fiir marka نعم qof kasta oo dadkii dhaxasha lahayd markii wuxooda la siiyay oo la hubay ilaa wixii naagnimo loo hubay wixii markii la siiyo kadib baaqigii waa la joojinaya marka ilaa dhuhuri xal ee laba loo qadaraya ninimo iyo naagnimo loo qadaraya نعم وأيام جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضه من بعض وبالتراث لسواهم فقدي باو ميراث الغرقة كوي متقانا أو بيئة يا هرقيي دول باكسو دمي هل مر بي بابعين على سمنيا وأيام هضوء لنتو جمع ويان ليش جمع بوليه ميرا وغلطي جمع هضوء لنتو بشيء هضوء كل لنتو كالغرق أو كلا وي ما شودين ولم يكن يعلم آن لأوجين ولم يكن أوصل هين يعلم من الأوجي هي عين من سبق كي هرمر عين تسأل الأوجين اللي عندك لهم مرة موت سيكون هرين بلوك الحشين يا زلمة فلا تورث حد حشين وبعضهم من بعض معناه واضح معناه غرابة هوي يصلح الله يلا يلا يا معناه جو نعم فلا تورث بعضهم دحش معناها أو كلا قاضي لم يقن وبالتراث دحشي وقضي حكمي وي بتراث وي اللي سامحه كوي كسو هري ايا حشي لا سينيا marka ايغي marka waska هذا كني افهم هذا اما هذا كني ما كي وي اردت ان دوني كفايه حال ويهوي متكفرا لدالي بالفن فن الميراث ايغي ميراث دونيو انت waa ku filantahay hadoo si fiican u fahmo iyo wadi cinaya dadalka u saaxiibka وقد غدت أبياتها أي صارت أبياتها ومن أخواتي كان يا سنية صارت أبياتها 12 وخبر كيوي مع 100 للقب بقول 8 مثل غلائد درر وجوهر أكل أيضا لميدا حال كونها مثل غلائد جوهر تلقشني معناها قرت والحمد لله على تمام ثم صلاته مع سلام على النبي المصطفى نبي سؤال المختار إلى دورتي وآله وعلى آله الله يرضى وصحبه أصحابته سؤال الأبرار بارياش هذا وبالله التوفيق وحنا نصيبني فمن الله وحنا فمن نفسي ومن الشيطان والله أعلم وبالله التوفيق